joogtiyo saaqad wacalimiyo santific baa u diyaaro siday rabaan loo siinaya macallin cali abuukar axmed ustaad kiimik kownka inta joogtiyo koornaqsho doonaysiyo kaydka bixin doonayso kaalmo rajaynaysa rajadooda weeyaan janaadka ustaad kiimiko jinkii lama haye jaaniskaaga ku bixi jaawareerka misteriyin biology jidkaad ugu bixin lahayd ustaad kiimika janaal weeyaan misteri kalqaadqaadan buugaagteena qaranka ayaa lagu hayaa kuwii hore ula xiriiraa ku hadla xeer ee hadda la xiriir biology beerka hadalkiisiyo baakteeriya baabkooda oo wada socda basics facaadan ka harimaysid waddan ustaad kiimika la xiriir xisaab analyska ku xanuunjisiyo xarakada kuu diiday xakaar kuu keentay xumaan aad ka fahantay xalkeeda ustaad kiimika weeyaan macallin haddaad taho xilka macallinimada dhexi aad ku heshay hadda ustaad kiimika waa feefar la qarqariyay physics awgii xalka xisaabta aad leedahay ustaad kiimika janal ayaa kuu diyaariyay maadooyinka cilmiga madaxwareen laga saaray maankaaga ku dagayo meel kale adoon ku duulanayn sabskaraib saar janaalka ustaad kiimika janaalkii ugu horreeyey santific af soomaali ku baxay cashiro kala dhigdhigan dhegahana uroon daayaha ku irdowsadaan ustaad kiimika janal ugu kaalay macallinka wuxuu bixinayaa koorsooyin weji ah iyo weliba wuxuu bixinayaa koorsooyin online ah bixi faahfaahin dheeri ah nambarka kala السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معلم كيميكو بريكا مادة ساينسكا scientific subjectska وحساب فصل كاللبي طبعا جبتر كاللحاد كالكلس منهجك ومنهجك الصوماليا لما نرديدا فنفوردا وإدين سلام يا انت جنرال كي سبسكرايب ساري هاي انت عشرة إذا كتحن جنرال كبحة سيدو كالحا سلام يا أرديدا لبدا سكول يعني jooga ardayda privateka si gaar ah waa idin salaamaya waxaa kaloo salaamaya ardayda online-ka meel walba ay joogaan macallimiin iyo arday qadarin iga mudan dhammaantiinba dadka janalkayga cashirada ka daawada wax ka faa-idaysta aada iyo aad idin salaamaya commentiyadiina aadaan ugu maansan tihiin intii tabarteyda insha allahu tacaala waxaan isku daya inaan idin dadaalo waqtiga oo iska yar ardayda foonfoorada imtixaanka shahaadiga ee wasaaradda waxbarashada wasiirka waxbarashada goodax barre imtixaankiisa galaysa waxaan rabaa inaan si kale aan idinla hadla maanta insha allahu tacaala oo hadal oo ii dhimeeyahay si international insha allahu tacaala xisaabta maadaama jabtar ugu dambeey uu yahay imtixaankana laga yaabo inay ku timaado waqtigana aada isaga gabaabsi yahay waxaan rabaa ardayda inaan ka caawiyo janalkay ka bixi doontaa si full haddaa u rabto waxaad igala soo xiriiri kartaa whatsappka si hal mar aan kuusii videoyada aadaa umaasan tahay cashirada waad iibsan kartaa bugaagta manhajka hadda aan isticmaali doono oo aan duubayo xisaabta calculaska dowladda ku dhisi doonaa wixii markaa oo aad exercise ama example aan kusoo kordhiyo waxaan doonaya inaan garaadkaaga aada u qaado oo aad si fiican u fahanta calculaska videogan waa videoga labaad videoga koowaad waa introduction to calculus youtube-ka hore ee usoo geliyey cashirkan waa kii labaad oo aan rabo inaan ku kala dhigdhigo limitiska insha allahu tacala waxaan uqeybinaynaa laba qeybood qeybta maanta waxaa qaadanaynaa direct substitutionka oo si toosa devalue of x-ka u sameynaya inaad bedesho qeybta kale wixii ka dambeeya waxaa isticmaali doonaa blackboard maanta waxaa isticmaalayaa computer ama laptopkayga hadda kadib waxaan rabaa calculaska inaan blackboard ku sameeyo si aad u aragto weyga aan isticmaalayo hadda waxaa laga yaabaa qalinka aan isticmaalayo inuu xoogaha problem kugu yahay ardayda aada u salaamantii soo dhawaada marka limits xad af soomaali the notation of limit is a fundamental concept of calculus limitska marka laga hadlayo waa barta asaasi u ah maadadan calculuska jabtarkan marka waxaan ku daraasayn doonaa how to evaluate limits sida limitska loo xaliyo oo loo qiimeeyo and how they are used in the two basic properties of calculus sida loogu xaliyo loogu isticmaalo labada masaa-isha waaweyn ee calculuska waxaa loo qeybiyaa integral calculus iyo different calculuska waa arki doonaa oo qeybta horea ku jirtay videogeena haddii marka loo baahan yahay dib aa ugu daawan kartaa waa videoga blank sabuurada a isticmaalay waa hore aan soo geliyay marka codsiga marka ardaydu si gaara dadaa igala soo hadla whatsappka oo caadi isoo waca telefonka hormuudka dad baa whatsappka igala soo hadla dad baa comment kasoo dhiibta facebooka marka baahooyinka markaa
waa isku xirxiran yihiin wayna aad isku daba feelan yihiin marka shaqo kale ku jira shaqooyin kale iska jira marka waa idin caawin doonaa si guud iyo si gaara insha allahu tacaala ruleska marka limiska loo adeegsanayo limiska lim egiska wuxuu la mid yahay number haddii la consgareeyo waa sida macnaha sida waa constanty haddii number kan waa sida soo baxaysa f hadduu ku dhacsan yahay fx ama c oo constanty number ah haddii fx uu ku dhacsan yahay hore uu ka marayaa limiska lim x approach a fx plus or minus gx dee isku daro mid walba limka gooni u gelinayna marka haddii dhowr xab ay yihiin mid kasta x qiimihiisa gooni u bedelanaysa limkiisa hadduu ku dhufa yahayna mid walba gooni ugu dhufanaysaa haddii qeyb yahayna saas camal asagana laakiin mar walba waxaa ogaataa gx kaaga mar walba zero lamid qeybta hoose zero ma noqoni karta sin lim x sin x of x is equal to 1 tan x of x to equal 1 markaas saddexda dambo buqaraka waxaa laga yaabaa inuusan dhigin exercise isticmaal doona ku jira marka haddaad fahmi weyso adaa lagaa rabaa marka inaad la socoto si aan wax ku dhigayn bismillahi raxmaan raxiim haddaan ka bilaawno example-kan wuxuu leeyahay let lim tx waxaa u qaadataa fx inuu la mid yahay 7 gx kaaga inuu la mid yahay 12 waxaa laga rabaa inaad soo saarto fx laga jaray gx waxaa leenahay fx waxaa haysanaa 7 waa su-aasha a fx waxaa haystaa 7 laga jaray gx waxaa haystaa 12 marka labadan aan kala jiro waxaa iisoo baxayo minus 5 waa wadada ugu fudud aan ku marina marka lim x approach 3 fx waxaa haystaa 7 qiimaha x fx functionka x haysta waa 7 jaray baan oranayaa qiimaha gx haysta waa 12 7ka 12 ka tira waa 5 numberka weli calaamadiisa la qaadana oo positive-ka okay qaybta b waxay ahayd waa meesha boqolada ku tahay fx lagu dhuftay gx fx waxaa haystaa 7 lagu dhuftaa leenahay gx ka u haysano 12 si fudud marka waxaa sameynaysaa calculatorkaaga soo baxsanaysaa waxaa leenahay 7 waxaa ku dhufataa 12 7 marka ku dhufata waxaa noo soo baxaysa 84 84 su-aasha si xoogaha soo fiiri ayadana bracket waxaa leenahay gx waxaa haysanaa 12 all square half marka waxaa leenahay waxay la mid tahay kalkaas markaad joogto 1/2 waxaa ogaanaynaa inay la mid tahay radical 1/3 na waxay la mid tahay 3 radical oo cubiga 1/4 na waxay la mid tahay 4 radical qaabkaasaan ku wadayna waxaa kusoo qaadanay qaybtii ahayd ee rootska complexka markaa qaadanayna jabtarka labaad aad ula soco meeshaas marka waxaa lena marka radical oo ah 1/2 radicals ku batay 12 radical ma ka baxaa maya waxaa raadinaynaa laba tir oo radical isku dhuftay 12 keenis meterka ka bax midna ku haray waxaa waaye waa 4 times 3 marka 4 iyo 3 waxaa radical ka baxa 2 4 wuxuu ugu baxaa 2 radicalka waxaa ku harayo radical 3 waxaa ku haraya radical 3 intaas marka saasaa ku xalisa marka yaa example koowaad waaye meel marka waxaa kusiiya ku bedelanaysaa waxaa lagu siiya ku bedelanaysaa example-keena labaad aan fiirino example-ka labaad wuxuu leeyahay lim x approach 4x square lim x approach 5x mid walba marka waxaa ku bedelanaynaa the value-ga qiimaha aan haysan midda koowaad haddaan xalino waxaa leenahay lim x approach 4x square waxay la mid tahay x-ka maxaan haysanaa maxaa dhiisii 4ka ku bedelana marka waxaa leenahay 4 square macna waxay la macno tahay 4 times 4 kaa laba jeer isku dhufo 4 markaa 4 ku dhufan waxay soo baxaysa 16 okay inaad fahantaa filaya qaybta b su-aasha b waxay leenahay lim x approach 5x is equal to waxaa leenahay markaa 5 lagu dhuftay qiimaha x-ka waxaa haystaa waa 4 x ku bedela marka 4 markaa x ku bedesho maxaa leenahay marka x maxaa 4 ku bedeshmo waxay markaa 4 waxaa ku dhufataa 5 ama 5 4 ku dhufo waxaa noo soo baxaysa 20 5 markaa 4 ku dhufo waxaa noo soo baxaysa 20
okay b c marka waxaa leenahay tan x over by tan x lim x approach by tan x over tan x over x meel walba markaa meel walba oo x waxaa ku darataa by meel kastoo x waxaa ku daranaa marka by lim x approach tan marka x kan ama meesha by-ga waxaa ku bedelanaa waxaa leenahay marka x waxaa haysaa meesha fiiri waxay tan x over x is equal to tan marka qiimaha x kan aysan waa by loo qeybi waxaa u qeybinaya marka by markaa form 4 ay joogno si gaara maadada xisaabta by waxay noola mid tahay 180 physics-kana wuxuu la mid yahay marka form 4 la joogo ama si kala guudba 3.14 marka waxaa leenahay marka tan marka 180 la dhaho tan by 180 waxay ku tahay 0 marka waxaa ka fiirinaysaa angalka waxaa u qeybinaynaa by 180 waa 180 markaa 0 qeybin waxay noqonaysaa 0 qaabkaas 0 kusoo baxay marka qaabkaas 0 kusoo baxay okay waxaan arag markaa d si xagga ku xalisay d waxaa u dhahay lim x approach 9 radical x meel walbo x marka waxaa ku bedelaysaa qiima aysan oo 9 laan markaa radical ka bixi waxaa soo haraysa marka 3 see kusoo baxay haddii la yidhahdo waxaa isweydiinaynaa 9ka waxaa laga keenay 3 times 3 labada markaas ku dhufto waa 9 soomaa waxay la mid tahay marka as index form ka dhigaysaa waxaa leenahay 2 ama 3 square-ki 2 isla baxay square-ki radicalka isla baxay square-ki radicalka marka isla baxaan maxaa soo haray marka waxaa noo soo haraysa 3 labadaas xalba waa la helaa labadaas qaab waa lagu xaliyaa ama si toosaa dhahdo radical 9 ka bixi ilaa isweydiistaa dhahdo radical 9 ka xaggee laga keenay oo is dhaha 3 times 3 labada 3 mid kale soo qaado aan ku sameeyo index formkii aad soo baratay ilaa u bedesho qiimahayna kale ama qeybta kale ee ah waxaa leenahay waxaa haysanaa lim x approach by cos x over maxaa leen marka waxaa haysanaa x cos x cos x waa xarafka waxay la mid tahay x ka marka qiimaha isi waa by waxaa leen marka by cos waxaa leen marka by lagu dhuftay cos by sarifa cos by marka waxaa ku sarifa waa cos 180 waa -1 wal 180 waa -1 marka waxaa leena by oo 180 u taagan waxaa ku dhufanaysaa -1 waa -by marka ila because wax ma ka qaadayo calaamadan positive oo inta by positive wata positive kana waxaa ku dhufanaynaa negative kan waa negative wana hadii by ku dhufan waxba kama qaadayo waa by -by kaas ku soo baxaya marka -by taas ay nagu soo baxaya xarafkan ugu dambeeya ee f ta ah waxaa la yiraahdaa lim x approach 3x plus 4 all square waxaa leena marka meel walba qiimaha waxaa ku dejistaa lim x approach 3 x plus 4 all square waxay la mid tahay marka x waxaa haysanaa 3 lagu daray 4 waxaa ku daraynaa marka 4 waxaa leena marka all square is equal to marka labadaas soo daro marka waxaa bracketka asala bormaska ilaali saddex waxaa ku dartaa 4 waa 3 4 ku dartaa 7 square gale marka waxay la mid tahay 7 times 7 markaa 7 ku dhufan waxay noqonaysaa marka waa 7 ku dhufan macnaha 49 okay waa kaas all solutionska meesha uu saareeyahay buqarkaaga uu ku qorayahay aad isticmaalaysaa example saddexaad waxaa lagu dhahay find the limits of each mid kasta limitkiisa soo hel midkan ugu horeeya haddaan ku hormaro waxaa waaye -1 oo ah lim x approach -1 x-ka -1 haystaa waxaa lagu siiyey x square plus x -6 waxaa leena x-ka waxaa haystaa -1 waxaa saarayna square -1 waxaa saaraysaa square plus lagu dhuftay bracket fur x-ka waxaa haystaa -1 hadii marka calaamada minus timaado waa inuu bracket galo si marka banaanka looga ilaaliyo -6 marka -1 markaa square saaro waa un 1 le de laba jeer isku dhacaya minuskan positive aa soo baxaysa minuskan ama pluskan minus ku dhufo waa minus is equal to cafan is equal to meesha ma jirto waa -6 labadan waa isla go-aya marka -1 iyo +1 isla go-ayaan waxaa noo soo haraya marka -6 isla fiirin marka waa lim x approach -1 bracket x square plus x -6 waxay la mid tahay
1 square saar oo minus 1 plus minus 1 kan lagu dhuftay base kan oo kale marka square soo saar waa 1 plus kan waxa ku dhuftay minus waa minus kan minus 6 ka meesha awsal iyalay labada number asla baxay waxa soo haray marka minus 6 okay kan labaad asana waa lamid waxa sameynaysaa si toos ah inaan qaybino oo bida waxaa leenahay x square ka ah x square plus x minus 6 waxa u qaybinaynaa x plus 3 waxay la mid tahay marka qaybtan kore waa minus 1 minus 6 soo baxday laakiin inaan sameeyno minus 1 oo square plus lagu dhuftay minus 1 oo x ka meesha inuu yaala oo video-ga bedestay minus 6 loo qaybiyay x ka waxa haystaa minus 1 plus 3 aleena marka waxay la mid tahay marka minus 1 ka marka laba jeer isku dhufto wuxuu ila mid yahay 1 plus ka marka minus ku dhufto waa minus 1 minus 6 over waxa u qaybinaysaa labada markii kala jiraan waxa soo baxay 2 da positive wata because 3 da positive labada number isla baxay marka labada number isla baxaan waxa soo baxay minus 6 over 2 minus 6 marka foto waxa waa inta waxa waa positive marka minus marka positive qaybsato waa minus 6 marka 2 qaybsan waxa soo haraysa 3 waxa soo haray 3 okay sir waxa la kana square saaray waxa lagu daray x ka oo minus 1 ki aha labada marka la soo xali minus 6 soo hartay over 2 labada waa soo kala jaray labada isku sii qeybi waa minus 3 qaabkaas ku soo baxay marka testiga marka istijaabi marka ina fahamtay saddex example hadaa saddex example aad ila socoto waxaan ka balan qaadayaa in aad ii sheega ka soo macnaha limits-ka oo direct solution aad ku fiicnaan doonto insha Allah ta'ala labada xabo waa ka jawaab ku siina xitaa marka ka shaqeyso bounce ka marka answers marka ku soo baxdo bounce ka video-ga si jawaabta asaga hubiso marka soo shaqeyso mid koowaad inay ku soo baxdo 10 mid labaadna 108 jawaabaas marka waa iska soo hubinaysaa qaybta kale limits-ka wali muusan dhamaanin laba video ama hal video inoo dhinaan doono si direct solution command qaybta oo evaluation ka galayo ama rationalization hal isticmaalo ama qaybta technical out-ka in la isticmaalo labadaba xalino exercise-ka marka xaafada u qaadanaysaa kan exercise-kan waxa waa glass work camal glass work waxa u dhahay marka si jawaab si rabaa afar xabo soo ma yes afarta xabo waa ka jawaabaysaa markay ka jawaabto jawaabahan bounce ka answer iska fiiri bounce ka jawaabaha waa kasa tan koowaad iyo tan labaad tan koowaad waxa soo baxaysa 10 tan labaadna waa 8 tan saddexaad waxa soo baxaysa 2 over 3 tan afraad waxa soo baxaysa 3 over 5 inta marka ka shaqeyso oo aad isoo dirtay qaabka ku soo xalisay insha Allah ta'ala kala si online ku baranaysaa okay kuwan waxa waay jabalka buug inoogu qoran example ma dhigin haydihin marka example ma dhigin macaan low adin ma dhigin haydihin waxa dhada x kan fiir waxa u dhahay hadii qiimahan x ka uu 2 ku siqo oo haysto 5x plus 4 adin waxa laga yaabaa meesha calaamad ay saarantay inay soo buuxiso kuwan kale waa soo buuxin kartaa kuwan kale si soo buuxinaysaa meesha waxa haystaa fiiri equation kan waxa haystaa oo function of x 5x plus 4 mo x ka mar waxa bedinaysaa 1.9 waa qolis 1.9 marka 5 ku dhufato oo 4 ku darto waa qoraysaa hadana 1.99x ku bedelinaysaa 5 ku dhufane kadib 4 ku daraysaa waa qoraysaa hada waxa ka raba marka aan si toos ah inay sameeyso x kaas inaan ku bedelato tuuda intan qiimaha ay sheegto marka kana qiimihiisa ay sheegto saas camal intaas ka raba isaaska yimid kala mid ah muqarrar ku yaalo waxa ka soo guuriyay waa muqarrarka aan isticmaalayno waxa haystaa muqarrarka qafka haysan insha Allah ta'ala oo ardayda Somaliland iyo Puntland joogto waa u soo diri kara muqarrarkan hadda aan duubayo imanka Soomaaliya ardayda Puntland waxa laga yaabaa imtixaanka wasaaradda inay galaan somehow hadii galayaan marka ayagana wuxuu baahan si gaar ah loo caawiyo walaalaheen okay aada idin salaamaya muqarrarka inuu qorey marka soo soo guuriyay waxaan aan keensaday maahan 10kan kiis saddexaad ta kulmi doon. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi.